wafdi wasiir ay hogaaminaya wasiirka wasaaradda boosaha iyo isgaadhsiinta Soomaaliland Maxamed Jaamac Abgaal isla markaasina ay ka mid ahaayeen wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha wasiirka xigeenka amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha sidoo kalena waxa wafdidan qayb ka ahaa maamulka gobolka Togdheer taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Togdheer taliyaha galbeed tobnaad ee ciidanka militariga Soomaaliland taliyaha ciidanka asluubta xildhibaan Maarig Yuusuf Cilmi Bidde oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco iyo odayaasha labada dhinac ay ka dhaxaloosan tahay xurguftani colaadeed ujeedada socdaalkan ayaa ahayd xalinta xurguf colaadeed oo ka taagneyd muddooyinkii ugu dambeeyayba baliga diiriyo guuleed oo dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Burco inta ay wafdigan wasiirada ay ku sugnaayeen goobtaasi ayaa waxay shirar ducadeedyo kala duwan ay la yeesheen labada arday ay ka dhaxaloosan tahay colaadani markay soo dhamaadeen shirarkaasi ayaa waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda boosaha iyo isgaadhsiinta Soomaaliland Maxamed Jaamac Abgaal waxaana ku warbixiyay waxa isla qaateen odayaasha labada dhinac waxaana uu yiri waa shaqaaqada noocaas ahayd oo u dhaxaysay laba beelood oo halkan wada degto oo hela ayaa maanta markaa aanu subaxnimadii mar haddaan shalay soo galnay waxaanu iswaraysanay kala warqaaday sidii maamulkii nidaamku ahaa maamulkii dawliga gobolka iyo odayada dhaqanka halka joogay imikana annagii oo wada soconnaa ayaanu soo gaadhay tuuladan dabeedna waxaanu shaqadii oo si wanaagsan dabcan dad ehel ah iyaguba waxa ka dhaxayana aan wax weyn ahayn inta aanu gaadhayno waxa ka dhaxeeyay guntiisa iyo waxqabadkiisa waxaanu imika fariin ku kala qaadanay oo aanu isla garanay ciidankii qaranka iyo wasiiradii iyo heer gobol iyo heer degmo iyo odayadii dhaqanka ee hawsha maamulaya waxaanu ku kala qaadanay oo aanu ku kala tagnay hadda ummadana ugu bishaarayna runtii intii dhaweeyay heelka ciidanka joogtay intii ehla uga ahayd yani dawladnimada iyo wanaaga uga ahayd waxaanu u sheegaynaa inaanu ku kala tagnay in dhammaan ciidamo wixii dhulka joogay la kala qaado si amniga marka ugu horeysa loo sugo iyadoo amaran waanu bixinay iyadoo talana waanu kala qaadanay isafgarad wanaagsan baa halkaa ka dhacay iyo caqbal gobolku intaanu ku dhicina hawshaasi waxay noqonaysaa hawl nadiifa oo aan dhulka amniga sugan yahay aan qori aan ciidanka ahayn aanu jirin qaranka aanu jirin intaa waxay ka dambeeyeen insha Allah barita subaxa haddii ilaahay yiraahdo markaanu intaa hubina caawa ee isla hubina aniga iyaguba inay sida oo shir gashay ayaanu haddii ilaahay yiraahdana subaxana berita gali doonaa mid reerba 12 oo aanu ku balansanay iyo intayadii hoggaanka ahayd ee hawsha socotay heer gobolba isku soo wada xoriyo shaqaaqadan ayaa ku dhawaad muddo bila ah ka dhaxaysay laba beelood oo wada deegaamadaasi waa Khalid Bakeele shabakada caalamiga ee Itraaf News Burco.